بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiimahan kala ah what is a bull market and what is a bear market. inta aanan erey bixin labadan erey aan isla fahanno sawirkan. bull ama dibiga marka uu weerarayo nafla kale ama shay waxa uu adeegsadaa geesihiisa oo ku yaala meel sare. haddaba marka la rabo in la dhaho shahaadooyinka maaliyadda financial securities qiimahooda sare ayuu aaday ama sare ayuu u kacay waxa la dhahaa bull market ama bullish. qaybta labaad oo ah bear market ama bearish waxaa laga wadaa waraabaha ku nool Mareykanka oo waxa uu adeegsadaa jeeniyada ama lugaha hore marka ay rabaan in ay weeraraan noole ama shay. maadaama lugaha ay hooseeyaan marka la dhahayo suuqa lagu kala iibsado shahaadooyinka maaliyadda hoos u dhac ayaa ka jira ama qiimahoodii hoos ayuu aaday ayaa la dhahaa suuqa waa bearish ama bear market. haddaan isla fahanay labada xoolo magacyadooda sida loola xiriiriyo suuqa lagu kala iibsado shahaadooyinka maaliyadda aan isla aragno erey bixintooda. bull market ama bullish waa erey laga isticmaalo suuqyada maaliyadda financial markets loona isticmaalo in lagu caddeeyo ama lagu saadaaliyo sare u kaca shahaadooyinka maaliyadda financial securities khaasatan marka sare u kaca gaaro 20% haddii aanay ka badnayn. sidoo kale ereygan waxa uu caddaynayaa jiritaanka yididiilo ama optimistic ay helayaan maalgashatada iyo dhaqaalaha guud ahaanba. haddaan u soo gudubno erey bixinta labaad oo ah waa maxay bearish market waxa ay liddi ku tahay bull market oo waxaa loo adeegsadaa marka suuqa lagu kala iibsado shahaadooyinka maaliyadda uu hoos u dhac ka jiro khaasatan 20% ama ka badan. suuqana waxaa ka jira niyad jab waxaana laga baqaa haddii xaaladda sii socoto in dhaqaalaha waddanka xitaa saameyn xun ay ku reebto. haddaba ogow bull market waxaa jira sare u kac iyo niyad wanaag halka bear marketna ay jirto hoos u dhac ama niyad jab. haddaba xog dheeraad ah oo ku saabsan financial markets ama financial securities ka dhegayso lifaaqa hoose oo aan hadda koor kaga soo hadalnay. mahadsanidin waa inoo mar kale haddii rabbi idmo.